wasiirka arrimaha dibadda Algeria Sabri Bukhadouma ayaa waxa uu tusaale aan wanaagsaneyn u soo qaatay Soomaaliya xilli uu ka hadlayay xaaladda colaadeed ee ka aloosan dalka Liibiya. Bukhadouma ayaa ka digay in Liibiya oo 10 sano ku jirta dagaal sokeeye ay noqoto Soomaaliyada cusub, isagoo u muuqday mid muujinaya in xaaladda dalkaasi ay hadda ka fiican tahay midda dowladda federaalka Soomaaliya. Liibiya oo ay ku loolamayaan qaar ka mid ah quwadaha caalamka ayaa dagaalkeedu yahay mid dowladaha isku adeegsanayaan dalal kale, waxaana ka digayaa in dagaal wakiileedku Liibiya ka dhigo Soomaaliyada cusub, ayuu wariyaasha u sheegay sida uu shalay oo Sabti ahayd ka soo xigtay wargeyska maxalliga ah ee The Libya Observer. سوريا أو أعر أن تكون يعني صومال جديدة، صومال اليوم، انقسام ليبيا، وهذا سيمس أمن. bishan July 5 ayay ahayd markii madaxweynaha Algeria Abdelmadjid Tebboune uu gaf noocaan oo kale ah u geystay wadanka Soomaaliya. xaaladda Liibiya waxa ay noqon kartaa mid ka daran sidii dalka Syria haddii aan laga gaarin heshiis nabadeed iyo xabad joojin. waxaan ka baqayaa in qabiil waliba ishubeeyo kadibna ay xaaladdu la mid noqoto sida Soomaaliya oo kale, ayuu u sheegay TV-ga Faransiiska laga leeyahay ee France 24. inkastoo dagaal sokeeye uu ka dhacay 1991 Soomaaliya waxa ay ka soo kabanaysaa sawirkii xumaa, waxaana ay samaysay horumar kala duwan walow aysan wali soo gaarin halkii shacabku ku taamayeen. madax caalami ah oo heer qaaradeed iyo heer gobol ah ayaa siyaabo kala duwan ugu digtay kuna awrkacsada Soomaaliya marka ay ka hadlayaan qadiyada la xiriirta taariikhdii hore. wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa alaaba ka gaabsata xadgudubyadaas ama jawaabta ay ka bixiso waxa ay noqotaa mid dabacsan. dalka Algeria ayaana waxa uu yahay dal Carabeed oo dhaca waqooyiga Afrika, waxaana uu 5 bishan u dabaaldegay maalintii madax bannaanadiisa. Algeria ayaa waxa gumeystay Faransiiska